now with the Russians marching in, it's changed the calculus entirely. Tens of thousands of people have tried to flee the city. There will be many more. People are hiding out in bomb shelters. But this isn't a place, with all due respect, like Iraq or Afghanistan, that has seen conflict raging for decades. This is a relatively civilized, relatively European, I have to choose those words carefully too, city where you wouldn't expect that or hope that it's going. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kuntu ana wanaagsan daawadayaal kuna soo raada barnaamijkeena maanta ama caawa sida idin tahaba. Maanta waxaan uga hadli doonaa barnaamijkeena dagaalka Ukraine ka socda oo soo bandhigay weji qarsoona ama weji madow ee galbeedka markaas ay qarinayeen inkastoo ay diinteena ka warrantay. Ninkan hadda ku muuqda wuxuu leeyahay Ukraine la mid ma ahan bariga dhexe sida Iraq ama Afghanistan ama Syria. wariyahan hadlaya hamoodin hadalkan inuu isagu uu ku kooban yahay ee waxaase maalmahan aad u soo noqnoqonaya erayada kale ah waa walaalaheen waa masiixiyiin waa dad indha buluuga leh oo noo eg dadka Ukrainiyiinta ma ahan Iraaqiyiin Syria ama Afghanistaniyiin ma istaahilan in la dilo waa dad xadaarad leh. Tusaalan haddii aan soo qaadano wariyaasha caanka ka dadka caanka sida wariyaasha ama dad madax ah mas'uuliyiin dawladeed ah ayaa aad arrintaas ugu soo celinaya oo tusaale haddaan u soo qaadano wariye ka shaqeeya idaacadda Al Jazeera ayaa aad ugu soo celiyay hadalkaas sidoo kale Al Jazeera ay raaligelin ka bixisay. sidoo kale dadka caanka ah ee ka hadlay arrintaas hadalkaas ku hadlay waxaa ka mid ahaa madaxweynaha Bulgaria waa bariga Yurub wuxuu khudbadiisii u jeediyay ka mid ahayd inay soo dhaweynayaan dadkan aysan ahayn dadka sida dadka ka yimaada bariga dhexe oo kale ay yihiin dad ilbaxa oo xadaarad leh. dadka Iraq, Syria iyo Afghanistan waxay mudan yihiin in la dilo. sidoo kale dalka Ukraine wuxuu ka mid ahaa wadamada xiriirka dawladaha Iraq haddii aan taariikhda dib u eegno dalalkan la sheegayo ee burburiyay waxaa burburiyay galbeed tusaale ahaan wadankan Ukraine wuxuu xiriir diblomaasiyadeed aad u fiican waliba wadanka Iraq. kadib Mareykanka ayaa ku duulay Mareykanka markuu ku duulayena wuxuu sameystay gaashaanbuur ugu yeeray dagaalkaas dadka uu ka codsaday inay gaashaanbuurtaas kula boobaan waxaa ka mid ah wadanka Ukraine. Iraqna xiriir dhalo lahaa isagoo aan ka labalabeyn ayuu dagaalka ku soo biiray. sidoo kale waxyaabaha yaab kale waxaa ka mid ah dhanka ciyaaraha. sidoo kale waxaa mamnuuc ka ahaan jirtay in lagu soo lifaaqo qadiyadaha la xiriira wadamada qaar sida Filistiin oo kale. maantana waxaa lagu qorayaa garoomada ciyaaraha iyo sidoo kale ciyaartoydana ay ku qoranayaan fanaanadooda inay garab taagan yihiin Ukrainiyiinta. sidoo kale dad mutadawiciin ayaa waxay iyagoo isxilqaamaya ka soo safrayaan ama ka soo tagayaan wadamada ay u dhasheen sida Ingiriiska oo kale iyagoo markaas dawladoodana ay ogyihiin inay taageerayaan. walow markii dib loo meeleysado taariikhdu waxyaabaha Syria oo kale markii lagu duulay waxaa ka mid ah waxyaabihii dhacay dadka Syria u dhashay ee ku nool galbeedka markii dagaalada soo aadeen si tan iyo markii uu bilowday duulaankii Ruushku ku qaaday dalka Ukraine waxaa soo shaac baxay la wareedyo ka tirsan sirdoonka Mareykanka oo sheegaya in dawladda Mareykanku ka qoomameynayso kadib markii ay xogo sirdoon oo daahfuran la wadaageen sirdoonka Shiinaha si ay ugu qanciyaan baa la yiri madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin inuu duulaanka ka baaqsado uu ku qaadi lahaa dalka Ukraine. iyagoo taas ka duulay ayay saraakiisha sirdoonka Mareykanku wax kasta ku bixiyeen si ay Shiinaha ula wadaagaan macluumaad iyo waliba xogo sirdoon oo dheeri ah oo kamid ah goobo istiraatiiji ah oo ay militariga Ruushka ku sugnaayeen iyo waliba xogo kale oo la xiriira qorshaha ciidan ee Ruushku damacsanaa ama habka loo diyaariyay ciidanka Ukraine inay isaga difaacaan awoodda ciidanka ee Ruushka. balse xilli Ruushku isku diyaarinayay duulaanka Ukraine ayuu Shiinuhu qaaday waddo taa ka duwan wuxuuna xogihii iyo macluumaadkii markiiba la wadaagay saraakiisha sirdoonka Ruushka ee KGB isagoo intaana u sii raaciyay inuu Mareykanku wado qorshe ka dhan ah Ruushka iyo Shiinaha oo uu ku doonayo inuu iska hor keeno labadan dal. xogahaas muhiimka ah ee ay isdhaafsadeen Shiinaha iyo Ruushka ayaa u sahashay in madaxweyne Putin uu xeelad u adeegsado Mareykanka iyo xulufadiisa reer galbeedka wuxuuna marar badan u sheegay ka hor duulaanka in dalkiisu
uusan wax weerar ah ku qaadi doonin Ukraine. hase ahaatee wargeysyada Mareykanka ee ugu afka dheer ayaa markii dambe daaha ka rogay arrimo hoose oo qarsoona oo in badan lisla dhexmarayay oo xitaa gaaraya heer madaxweynaha Mareykanka Joe Biden si shakhsiyan ah isagu u bixiyay baa la yiri macluumaadka iyo xogo oo si toos ah uu la wadaagay hogaamiyaha